السلام عليكم وإن سلام أصحابتا meel walbaa joogtiin kusoo dhawaada channelkeena Bushra Cooking and Healthy walaaley maanta waxaa rabaa inaan idinla share gareeyo vegetable soup oo easy ah oo maasha Allah healthy ah macaan ah oo ilmahana aad uga helayaan iyo qof kasta like maxaa xiliyaasha qaboobaha isticmaali kartid cabi kartid oo qabow ka difaacayo oo ku siinayo يعني خضارات وايه فيتامينات iyo wuxuu ku siinaa strong muxuu ka dhigaa qof energy haysto tabar haysto marka sida u sameynayna iyo waxyaalaha u baahanahay insha Allah ila arka meesha maxaa ku haysanaa basal cad iyo maxaa ku haysanaa toon ku haysanaa 5 xabo toon intan maxaa ku haysanaa broccoli haysanaa cauliflower qudaar oo diyaarsan oo frozen cauliflower iyo carrot iyo beans iyo ahaysana meesha isku jiro meeshasna maxay igu jirto kabsar caleen intana maxay igu jiro waa ka seesin briganya qudaartana ku jiro kana waxa way celery and then intaas u baahanahay celery-ga hada waxa uga baahanahay halka xaba uga baahanahay cause ilmaha u sameeyna kana waxa uga baahanahay half uga baahanahay then waxa u baahanahay saliid ma ku karin dooni wax yar buluban ayaa ku isticmaali doona insha Allah cusbo iyo waxaas iyo waxa u baahanahay carfiska qofka ay ku xirantahay waxyaalo uu rabo insha Allah ani wax badan ma ku sii daray marka intaana muhiim ah intaana hadeertan dabka u shidanayna insha Allah soo dhawaada daawasho wacan marka maraqaneeti waxa waaye hadaa cabtid like morning like 4 saac camal ama habeenkii inta diyaarisid hada ilmaha u kulay subax marka iskuulka aadayaan wax ku siisid u fiican tahay oo ilmaha ay jecleen inay subaxii wax maraq la ay cunin laakiin waqtiga u fiican oo la cuni karo ani habeenkii jeclahay inaan isticmaalno habeenkii aan siiyo like 5 o'clock waqtigaas inaan wax ku siiyo chapati ama rooti ama waxaas jeclahay marka ani waqtigeyga igu fiican waxa waaye waqtigaas waa evening time-ka marka qof kasta iyo soo dhanaan u jecel yahay maraq marka waqtiga rabtida cabaysa insha Allah waxa ka helaysaa fitamiinad waxa ka helaysaa strong energy ka helaysaa ilmahana energy ka helayaan waxay ku noqonaa ilmo oo active masha Allah oo cunto kastana way ku baranayaan inay cunaan markay yar yihiin hada khudaaraad bartid markay weynaadaan ma kugu dhibayaan cuntada يعني ما دهayaan kan iga bixi dan sa u sameeynayna waa isla arki doona walaalahay insha Allah ila socda waa kana marka dhinaca dabka imaanayna marka waxa u baahanahay hal qaad oo aad u buuxin oo butter يعني ilmaha ma dareemayaan ina butter ku sameysay dhadhanka ma laga dareemayo healthy-na waaye saliid ma looga daraayo insha Allah marka butterkaas yarka ayaa ku sameeynayna jeceshahay hilib waa ku darsan kartaa ama chicken but ana ilmahayga ma jeclo qaar chicken ka ma jeclo qaarna hilibkan ayaga dhan ma cunaanba ma jeclo so marka wax yar sugeena dan basasha ku shubeena daboolana marka waa kaasta marka asxaabta basasha iyo toontii way soo brown ay soo noqdeen ani toonta ma jajarin ayadoo waaweyn koos hadda waa shiidi doona insha Allah then hadda waxa ku jira biriganya iyo celery wax yar leh ka soo qaatay halka xabaa idin tusay then waxa ku jira qudaarta kala ku jira waxyara dhaafeena marka waa kana marka walaaleyga waxa ku sii darsanaa kabsarta qudaarta hal mar isdhex galay markay bislaatana waa shiideena insha Allah marka diyaar waaye qudaarta saa sugeena wax yar markay hurtana waa biyeena insha Allah marka asxaabta waxa idinka ilaaway oo ku darayay digirtana ku darayay oo misirka la dhahayo marka hal koob halfkiisa ku daraa
because maxay siinay protein ay siinay aad ayaan iskugu macaan yihiin markii khudaarta iyo geedaan maraq laga dhigo marka tana ku daraa insha allah. ku badinin nus bakeeri le ku daray marka haddaa famil badan tahay waa badsan kartaa marka cabaar marka isku hurto waxaa soo sameynayna oo biyeynayna insha allah. halkana marka waa isku soo huuriyey marka insha allah waxaa ku daraa haruuda ku daraa haaf qaada haruuda ku daraa waxaa ku darayaa cusbo yara ku darayaa waa qiyaasana insha allah qaado yar camal ku daray marka haddana waxaa ku daraa waa biyeynayna 2 liters camal oo biyo ah waxaa kusoo shubaya hada biyihii 2 liters ka camal ahaa intaasaa ka reebay 2 liters camal ay ahaayeen intaas ade 1 litir iyo bar camal aan kusoo shubay insha allah marka intaana si fiican iskugu bislaysiinayna kadibna waa arkayna waxaa kusoo binayna oo shiidayna marka saan daboolkiisa loo dhiibaa waxba saas ma u dhimano waakana marka maraqi diyaar waaye saasoo wuxuu noqday tiig adeeguu noqday marka waxaa ku darsanaynaa barbarooni 2 nooc marka intaana waxaa ku dhaafeynaa 5-10 minutes inuu ku huuro barbarooniga kadibna waa shiideynaa dabka hadda waa ka daminaa because waxaa rabaa inaa mashiinka gacanta ku shiido mashiinkan inaa ku shiidaa rabaa marka maadaama mashiinka ku shiidaayo dabka waa ka daminaa baseel waaye waxaa sameynaa kan barbarooniga bas inuu iigu huuraa rabaa khudaarta aada u bislaatay oo ujeediin maasha allah digirtana aada u bislaatay bas waa shiidaa wax yar ka bacdi waa shiidayaa markaasaa arkeenaa see kusoo baxdo waa kana marka mashiinkaa soo xirtay marka waa shiida insha allah qayladiisa idiin diida mashiinkan waxyaalaha oo maxaa lagu shiitaa maxaa la kanasi digirta oo bajiyaha iyo laga sameynayo iyo maraqan camal iyo waxaasaa lagu shiishitaa cuntada ilmaha xataa waa lagu shiidan karaa marka kana kusoo shiida qayladiisa zaaid waaye marka waa soo shiida waa isku soo laabanayna waa kaasaa marka waa soo shiiday walaalahayga diyaar waaye weelkii aan ku shuban lahayna soo qaadanaynaa marka waa ka bixinaynaa mashiinka marka weelkaana ku shubanaynaa oo subka lagu shubto ama waxaa haysatida ku shuban kartaa baaquli marka saano diyaar noogu yahay marka waxaa u baahanahay liin dhanaan oo ku shubane marka diyaar waaye waa kaasaa marka final lookkiisa marka u dambeysay saasoo ka dhigay broccoli-gii ku karinay kusoo qurxiyey then maxaa haystay rootigana guriga ii yaalay oo garlic bread asaa marka saas usoo dubay then asoo maraqa ii shiidnayna waa kana qofkii raba inuu cunto ahaan u cuno oo wax ku daardaarto intaa kusoo shubay then liin dhanaan marka maasha allah macaankiisa ma laga sheekeyn karo healthy waaye maxaa dhahaye ilmaha aada ugu fiican tahay qof kasta waa arkaysiin marka maasha allah sub oo baaquliga oo subka kusoo shubay marka intaas ayaa idinla sheer garaynaya aada ayaa u mahadsantihiin walaalahayga marka waa kaasa walaalahayga aada ayaa u mahadsantihiin daawashada waqtigiina ay siinaysiin
marka insha Allah I hope inaad ka heli doontiin recipe-gan oo quruxda badan oo yacni waqtiga qaboobaha oo la cabi karo maasha Allah waaye marka insha Allah try gareeya idinkana marka sidaas iyo waxaa idinka tagaa insha Allah see you the next video. Assalamu alaikum.